intee xabadood ayuu celin karaa gaariga bulletproofka ka waran adigoo meel colaada jooga kana baqayo qolyo aad is haysaan gaarina wata haddii aadan ka baqayn in xabadi ku soo gasho gaariga soo xasilooni iyo kalsooni dheeriya ma ahan gaariga ay qaataan naftoodana ku aaminaan dadka madaxda ah kuwa ganacsatada sare ah iyo kuwa dhaqaalaha culus haysta ee sidooda muhiimka isugu arka waa gaariga ku magac dheer bulletproofka sidee buu u shaqeeyaa waa samaxay shayga uu ka samaysan yahay ee adayga balada ee xabada aan naqaan awoodeeda iyo orodkeeda celinaya ugu horeyn baabuurta markii la soo iibsanayo ma ahan kuwa xabad celin kara shirkadaha baabuurta iibiya ma ahan kuwa ku shaqo leh bulletproofka ama xabad celinta waxaase jira shirkado kale oo sidan ka dhiga baabuurta taasna waxaa keenaya shaqada oo ah mid aad u adag mana ahan baabuur khaas ah baabuur walba waa laga dhigi karaa xabad celiye laakiin maadaama ay aad u culus tahay shayga xabada celinaya waxaa muhiim ah inuu gaarigu yahay mid dulqaadan kara qaadina karana culayska haddii kale jardiimada yaryar ayaa qabsanaya sida ku dhacday baabuurkan uu saarnaa Barack Obama walow uu ahaa gaari xoog badan misna waa ay ku dhacday goortii aad damacdid inaad gaarigaaga ka soo dhigtid bulletproof adigoo macmiil heer sare gaaray ah tusaale ahaan waxaad gaarigaaga geynaysaa mid ka mid ah shirkadaha shaqadan qabta kadib markii lagu amaanay aadna maqashay inay in badan ku badbaadeen macaamiishoodii hore kadib markii loo dhigay shirqoolo lagu dili rabay gaarigaaga waa la furfuri doonaa oo isaga dhanba waa la dhili doonaa waxaana laga bixin doonaa kuraasta roogaga iyo dahaarka daaqadaha oo dhan kadibna waxaa lagu dhijinayaa barihii iyo muraayadihii xabada celinayay min daaqado salka hoose iyo saqafka sare ee gaariga shaygan xabada celinaya waxa uu ka samaysan yahay alaabo la isku geegeeyay waxaana kamid ah polycarbonate ballistic ball fiberglass iyo Kevlar iyo kuwa kale oo badan alaabtan oo isugu jirta kuwa aysan xabadu sidooda u karin iyo kuwa lagu xoojiyay ayaa la isugu daraa in lagu dahaaro baabuurta alaabtan waa kuwa intooda badan ka samaysan ashyaa plastiga laakiin cufkooda ama densitygooda aad u sareeyo waxaa xusid mudan in farsamada ka dambaysa in xabadu dhaaf weydo muraayada aysan ahayn kaliya adeegeeda laakiin sababta aysan la dhaafayn waa in muraayada xabada ay ka nuugayso enerjiga ama tamarta ay wax ku daloolinayso isla marka ay ku dhacdana muraayaduna xabadii noqonayso dhagax la soo tuuray oo kale marka waxaa jira dhowr level ama heer oo uu difaacu gaarsiisan yahay kaasoo ka sii qaalisan hadba midka ka difaac yar tusaale difaaca koobaad waxa uu ka jaban yahay difaaca levelka afraad ama saddexaad heerka difaacuna wuxuu ku xiran yahay inta muraayadood ee la isku dhinac qabtay ama la isku lamaaniyay oo haddii laba muraayadood kaliya la isku lamaaniyay waxa ka difaac badan marka la isku lamaaniyo saddex muraayadood laakiin nasiib wanaag baabuurta lagu qalabeeyay difaaca heerka koobaad waxay awood u leeyihiin inay ka celiyaan rasaasta biskooladaha 9mm iyo sidoo kale qoryaha yaryar waxayna awood u leeyihiin inay celiyaan ilaa 3 jeer oo lagu dhuftay hal bar ku tasho haddii uu toogtuhu yahay shishihan oo uu mar afraad isla bartii ku dhufto inay ku soo gali doonto xabada ugu dambeyn si shirkadu u qabato shaqo xabad celina ama bulletproofina waxay u baahan tahay laysansi xoog badan iyo tijaabo waqti dheer ah oo ku mahadsan tahay daawashadaada fadlan haddii aad muuqaalka heshay like